بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وناسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan anigu waa jaamac cali xasan jaamac gaashaan cadde waxaan ahay ninka buugga lixda qoray astaan halgan la yidhaahdo in yaradan dib ugu noqdo muxuu ahaa taariikhdaydii anigu sanadkii 1950 baan dhashay reer miyi baan ku dhashay muddo yar ka bacdina waxaan soo galay magaalo waxaan bilaabay inaan wax barto anaa wax baranaya ciidankii xoogga dalka loo odhan jiray baan galay muddo markaan ku jiray baan dabeetana iskuulladeydii waxayga haddana sii watay 127 ayaan galay saraakiisha loo dirayay ruushka dayuuradaha ayaan soo bartay waxaan noqday muxuu ahaaye engineering diyaarada helicopterta la yidhaahdo aniga iyo madaxweynuhu waxaanu isku ahayn waxbarasho meel ruushkana waa wada joognay sabjaga diyaaradahana waanu soo wada barannay xamar baanu wada joogno ka wada shaqaynaynay haddii qadarkeeda leeyahay markii xaaladdu xumaatay ee maamulkii waddanka haystay qalloocday ee uu aayadii qur-aanka ahaa dafiray ee uu gaalnimo caddaystay ee uu wax walba qalloocdeenna dadkii halganka waan babaxay baan ku jiray waxaan galay muxuu ahaayey ururkii snm sanadkii 1985 bishii labaad ayaan galay maxaan ku idhaahdaa aaggeennan waqooyi ku soo jeeda waan ka shaqeeyey xaggaa iyo baarray meel la yidhaahdo oo koonfur ku jeedana waan tego waan ka soo shaqeeyey 88 raggii 27 may burca galay baan ahaa intii ka dambaysayna dee waa kii maamulka gudaha baa ahayoo gudahanu de ka wadnay halganka iyo dagaalka markii u dambaysay raggii berbere galay baan ahaa ee faqash ay naga tagtay berbere ay ugu dambaysay dagaalkii aynu ku xoreynay wixii ka dambeeyey waxaan u soo ambabaxay in halkan iyo hargeysa iska joogo inaan muxuu ahaa xagga kaljarka ka qayb gaato oo aan gabayo badan aan hantilin jiray xilligii halganka iyo xilligii muxuu ahaa somalilandaba ayaan ku foognaa in badan ku foognaa shirkii boorame waxaan ka tiriyey 2 gabay oo aan shirka kaga hadlayey oo mid la odhan jiray muxuu ahaaye muruqa laba suul iyo mid la odhan jiray maxaan ku idhahdaaye mid la odhan jiray muruqa laba suul iyo mid la odhan jiray magaciisa beelaawe mid kaloo isaguna ga-ah ayaa ku jiray oo ahaa maxaan ku idhahdaaye dadka ka dhigayey dadka isku xiga ee meel wada dega ee dhinaca isku hayaa inay isxigaan oo isku qolo yihiin oo aan ka saarayay nin xaggaa jira oo nin halkan jooga qolo la sheeganaya oo kan dariskiisa halkan kula jira kula dagaalamaya magac meel fog jira marka waxaan ka dhigayay labadan meesha wada joogay muxuu ahaaye iyo dantu ka dhaxayso gabayo aada loogu bogay oo taariikhda galay oo si weyn loo faafiyey bay ahaayeen wixii ka dambeeyey hargeysaan iska joogay xagga dowladda iyo shaqaalaha dowladda maan noqonin ciidanka waan ka fadhiistay iskay baan uga fadhiistay ciidanka dabeetana muddo kabacdi haddana waxaan xaggan muxuu ahaa jaamacadaha ayaan u shaqo tegey jaamacaddan golis baan ka noqday madaxa dhaqanka iyo muxuu ahaa suugaanta halkaa qoraallaan ku bilaabay xilligii hore ee soomaalida lahaana waxaan qori jiray buugag aada u qiimo badnayd oo xaggaa ku soo caan baxday mid la odhan jiray muxuu ahaayey 100kii aroos iyo aragtidaydii waxaan aada uga shaqayn jiray aroosyada waayo aragnimadii aan ka helay baan buug ka dhigay midna xoogga iyo xilkiisaa la odhan jiray midna waxaa la odhan jiray cali mardhoof qoraallo badan oo caan ah ayaan xaggaas soomaalida markii la joogay sabaynayey intii halkan la joogay wax badan soomaan saarin kan baan ku tuntuunsaday markii iminka u dambaysa barintaad garifgarif leedahay taariikhda daboolan ee sanamtaa ee aan weli qalinka loo qaadan albaabkeeda fur dabeetana ninkii sanamta iyo dagaalkeeda noo furay baan ku furay muxuu ahaa qoraalkii waa maxamed xaashi lixle diiriye maxamed xaashi diiriye lixle waa kaasoo baan soo saaray dabeetood buuggaas waxa weeyaan
وابو كوبان ما ان تاريخي كما دما waayo taariikhdii waxay noqotay waqti baa laga joogaa badan ummadii aad wuxuu haysay waxay noqdeen wax dhintay iyo wax dhoofay iyo wax iska gaboobay oo dhulka iska jiifa wixii markaa aan rasmi ah ayuu baan isu geeyay waxaan ugu talagalay in albaabka koowaad la furayo ka dhigo qaybta labaadna gacantaaba lagu hayaa way socotaa in qaybta wixii rasmi ah meelaha ku harsanee aanu isweynay ay ku soo hambaraan oo markaan aanu qaybta labaad si wadno hadii alla ka dhigo bowgalkaas intaas ka kooban yahay wax aan ahayn taariikhdii lixde oo ku jira haba yaraatee hadaya khamiista hadii alla ka dhigo yarinka dambe marka jimcuhu soo geliyo ayaa hadii alla ku kulmi doonaa Mansour Hotel halkaasaan xafladda ku soo bandhigi doonaa insha Allah taala. Saya suka sih, Mak.